qiso yar oo cajiib ah sariirta ayay dhinaca kaga fadhiday isaguna markaas ayuu guriga soo galay wuxuu tukaday 2 rakacadood oo sunno ah markii uu ka baxay salaada intuu kacay ayuu dhinaceeda fariistay kadib wuxuu la booday labadeeda gacmood maxaad sameynaysaa ayay ku tiri ma uusan u jawaabin ee hooshiisii ayuu iska sii watay faraha ku yaala gacanteeda midig ayuu sidaa u kala bixiyay kadib xubnaha faraha ayuu mid ka mid ah uu taabtay afkana wuxuu ka lahaa subxaanallah walxamdulillaah allahu akbar ayadoo sidii u yaaban wajigeedana qosol kalgacayl ka muuqda ayay haddana ku tiri maxaad sameynaysaa intuu cabaar wajigeeda si dabacsan u eegay ayuu si degan ugu yiri farahaaga ayaan ku tasbiixsanayaa si labadeennaba ajar na loogu wada qoro marka ay aragtay sida uu wanaageeda adduunay aqraba uga fikirayo ayaa indhaheeda ilin ka soo daadatay halkaas sujuuda ayay dhunkasho mackaga siisay waxay ahayd dhunkasho ilaahay og yahay meesha ay ka soo go'day maxaa ka wanaagsan kalgacaylka reerkaaga oo gacantaada aad ku abuurato wax yar oo aad samayso ayaad ku furan kartaa qalbiga xaaskaaga weligeedna aysan ku hilmaamaynin laakiin nasiib darro taama wada fahansanidin ragga Soomaaliyeed ee xaasaskiina kalgacaylka ku abuura oo qalbigooda hanta oo u noqdo daacad sida ay daacad idinku noqdo